qabo cudur qabade markuu gabadha ilaahay u geeyo gabadha farxadeedaaba dhibayso ninkii wuxuu yiri may ma arki karayo sidan anigu shaqada ka joog gabadhi waxay tiri may lagama yaabo shaqada inaan ka joogo may wuxuu shaqada waa inaad ka joogtaa waa la istagaalay wuu dilay gabadhi ninka uu gacan qaaday wuu dilay daris iyo waxba may maqlin lama soo dacweynin laakiin de isagii baa baqaya oo wuxuu isleeyahay inta aad dishid armay ku soo dacweysaa iyadoo ma dacweyso booliisna ma wacdo laakiin intuu dilay buu isagoo dilay hadana wuxuu u sii wacay reerkoodii wuxuu gabadhiini way shaqo tagtay meel bay ka shaqeysaa gurigan deganay way ka guurtay shaqadan iska daabaan leeyahay way diidan tahay marka gabadha sababta uu shaqada iska daa u leeyahay maxay tahay wiilkii yaraa labada wiil Isudiin baa la kaweyn ka yar Nuurudiin wuu weynaaday wuxuu gaaray xilligii iskuulka oo wuxuu jiraa 4 sano iyo wuxuu jiraa 3 sano ilaa 4 sano markaas sii galaya waxa la gaaray xilligaad ilmihii kala dhali lahayd ilmo kala dhal gabadhan waxay leedahay hadda inaan ilmo dhal ma raba cabaar inaan iska shaqeystaan raba mid kale hadaan xataa waxay tiri uur yeesho waan iska shaqeysanay waan shaqo tagaya meel caadi oo qof uur la ay ka shaqeyn karto weeyaan bilaha dambe markaan gaadhana iyo umushana waxaan soo qaadanaya fasaxaasi markuu ii dhamaadana waxaan ku noqonayaa shaqadayda may wuxuu yiri anaga Yurub joogay xisaabtamaysaayay ala ma nooliyay reerkoodii buu gabadhii ugu dilay aabaheed baa gabadhii ninkii uu dilay oo ooyaysa la soo hadlay wuxuu ku yiri ma doonaysaa inaan خير هشيد آخرية أدومبا ونقود عيو وذو ناكسناتو نينكا أمركيسا قادو waxay tiri ninkan 100 sano amarkiisa soo qaadanay dunidii buu igu ciqaabay wuu igu meystay waxay tiri guriga haduu igu yiraahdo ka bixin kama baxo lacagtaas ku shaqeysay si haduu yiraahdo waan siiya haduu idilo booliis uma sheego wadan waxaan joognaa bay tiri la xirayo qofkii qof dila oo qofna qof dharbaaxa ku dhufan kareynin maalin kasta wuu idilaa cidna uma sheego xilligaas gabadha aabaheed la hadlaysay waxay tiri jirkayga inta jug ku taala iyo nabarada uu igu dhuftay wallahi hadda waxay tiri hadaan booliiska waca hadda waxay tiri ninkan waa la xirayaa xabsi baa loo taxaabaya jugta jirkayga ku taala kaliya inuu carruurtayda aabahood yahay inaan wadankayga iskala nimid inaan isku wadanahay inaad idinku igu ogtiin uu igu masuul yahay baan u soo dacweyn lahay waxa la laway gaaloobi rabtaa gabadhii gaalada raacay rabta dhaama ninkaaga soo dacweyn ma waxay ma soo dacweyn laakiin waa soo dacweyn kara yani dibka uu ninkan igu hayo iyo jugaha uu igu dhuftay waa waxaan ku dacweyn karo aabaheed wuxuu waan ku duceynaa cidna ha dacweynina ninkaaga amarkiisa qaado waxay tiri waayahay ninkii isagoo xanaaqsantay oo isxanaajinayo lahaa shaqadaad ku madax adeegaysaa Soomaha maxay baad ku madax adeegaysaa Soomaha gabadhii aabaheed bay teleefankii uga baxday isagii bay ku soo jeestay waxay tiri adduunyada Ilaahay waxaad ii soo kordhinaysaa